بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الله تعالى في كتابه العزيز: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. صدق الله العظيم. وقال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وحانو مارتيا دونينا إنانو مارتيا كجوون سؤالو نلكسو ويديي ودمداس يورب oo saddex su'aalooda marka insha Allah ta'ala su'aalahaas sida uu maartay fahamkeenu yahay shariicada islaamka ayaan maartay ahaan uga fiirinayna su'aalahaas waxa weeye waxa ugu horeeya midda ugu horeysa hadii aanu fiirino waxay markaasi la yiri haweentu waxay beer u tahay ninkeeda ay beer u tahay hadda waxa weeye arintaas waxa ay keenayso iyo xuduudda markaasi ninku naagta markaas oo dhaqankiisa oo ku ekaanayo iyo inta markaas uga banaan amuurahaas ayaa markaasaanu maartay wax uga soo qaadanayna midda ugu horeysa horta waxa weeye ilaahay baa dhahay subhanahu wa ta'ala: nisaa'ukum harsun lakum fa'tu harsakum anna shi'tum ilaahi. haweenkiina waxa weeye beer ay idinyihiin ee beertiina u taga sida aad doontaan ayuu ilaahay. marka haddaba aayadaas wuxuu ilaahay ku cadeynayaa haweenku inay beer u yihiin, laakiin hadda waa miisaal weeye. beerta waxa weeye abuur ayaa lagu ridaa, waa la abuuraa. markii la abuur ayaa ka soo dhasha, markaas abuurkaas dalagii ka dhasho oo simaarta ayaa la gurtaa. haweenka marka ilaahay wuxuu ku shabahay dhulkii buu ku shabahay, arlada dhulka oo la beeraayo. haddii haweenta loo tago zawjka iyo zawjadiisu isu tagaan manida markaasi imaahaysa ma eedana waxaa lagu shabahay abuurkii beerta lagu abuuraa lagu shabahay. waladka ilmaha ka dhalanaayo gabadh wiil waxa uu noqdane zarciga amba dalagii ka soo baxaya abuurkaas ayaa lagu shabahay. aayada markii muraadka laga leeyahay waxa weeye in la cadeeyo ilaahay amarkiisa subhanahu wa ta'ala oo markaasi muraadka laga leeyahay meesha tan qaabka markaasi loogu tagaayo oo mawluuc zarciga weeye. meesha loo tagaayo ninku naagtiisa uga tagaayene waa xagga markaasi qubulka weeye. oo marka ilaahay uu leeyahay haweenkiinu beer ayay idinyihiin ee beertiina u taga sida aad doontaan ugu taga. hadda sida la doonayene waa kayfiye kasta oo markaasi jamaaca ah, sida mesela baayay taagan qiyaam min qiyaam wa qu'ud wa dijaa'in wa iqbal wa idbar, sida maartay culimadu markaasi ay ku fasireen aayada waa maartay asagoo maartay ninku ay taagan yihiin ama ay fadhiyaan ama maartay ay jeefaan ama iska soo horjeedaan ama ay sii jeedaan oo naagta ka sii jeeda ninka. laakiin meesha looga tagay maxay tahay waxa weeye waa maartay qubulka weeye. taas waxa weeye waa jamaaci maxalkiisa ilaahay u sameeyay oo halkaas weeye. waxa la yiraahdaa ta'miimul ahwaal ayaa la yiraahdaa. marka hadii la jamaaca haweenki ayadoo xagga sii jeeda laakiin farjiga ay tahay wax dhibaato ma laha. waxa kale su'aashaas ku jira hadda waxa weeye jamaaci hadda waxa weeye nabi kaleey sallallahu alayhi wasallam xadiis waxa jira markaas ahay naagtiina u taga sida aad doontaan wattaqidura wal haylata u dhahay dabada iyo markaasi haylka markay naagta qabtana ka fogaado u dhahay. oo haday caado qabto naagta ama nifaas ay qabto dabada in farjiga looga taga xaraam weeye. dabada in haweenta looga tagane ayaduna xaraam weeye. marka laakiin hadda taas waxa weeye waa jamaaci u tigitaanka xagga istimtaaca markii la yiraahdo waxa markaasi jirta dadku inay maartay sida hore ay ka duwan yihiin oo markaas ay dhici karayso in maartay qofkii haweenkii haweentiisa oo ku istimtaaco oo had noqoto qiblada han noqoto oo muqaddamatul jamaa wax la yiraahdo jiro jamaa ka horeeya jira. hadii mesela ay noqoto xagga maartay qiblada ama dhunkoosho ama shumiska waxa loo yaqaano oo markaasi meel kasta laga shuminaayo, haday noqoto maartay xagga kale istimtaaca waxa weeye intaas waa u banaan tahay. haday mesela dadku su'aalaha ay ka keenayaan sida hadda culimo badan kutubtooda ay ku qoreen maartay kutub badan ayaa jirto arrimahaas ka hadasha ayaa jirto. haddaan culimadan dambe casriga xataa ay wax badan ka qoreen marka hadii maraajicda kutubteena loo noqdane wax dhibaato aysan ka imaanaynin. ninka haduu naagtiisa mesela waxa weeye farjiga uu ka shumiyo ama maartay waxa weeye uu carabka ka geliyo
waxyaabo noocaas oo xagga min baabi talaacuba oo markaasi xagga ciyaarta iyo hadda naagta in la ciyaarona waa shay shariicada kamid oo inaan maaragtay ninka naagta hore uga boodin waaba shay maaragtay loo baahan yahay marka arrimo noocaas hadii ay dhacaan wax ka xariman maahan calaashaan waxa weeye ninku naag haweentiisu mawluuc istimtaaciisi weeye sida ayadu markaas sidaas oo kale intooda ay u yeeli karto bilcagsi ay u yeeli karto maadaama markaas waxa weeye jimaaci hadii laga dhowrsado qubul laga dhowrsado duurka ama naagtii waxay qabta laga dhowrsado inta kale intood waxa weeye waa mawluuc istimtaaciisi weeye wax shariicadu ka reebaysa ma jirto marka taas waxa weeye maaragtay su'aashaas halkaas ayaan markaasaan ku soo gaabinaynaa